أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها المباركون والمباركات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد التحية، أحبابت رسولك إلهي جعل مجلس كان بركيسان وحان أفضلنا هذا إن شاء الله إنان قد قلنا همزيدي سيدي إمام البوصيري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصيدتي سي شرفت بدنات نبينا عليه الصلاة والسلام أو كو أماني كديب مركي عذر كإلهي كعافية عذر كاسو أو ألفي إنه كودجي قصيدتي هوري أن أصوى قادنا أو بردها أهد عافمات كيس كبعدنا شكرا لله أصو إلهي أمهد نقايو إلهي انتو أبور نبي وجعل نبي ومركلا أماني عليه الصلاة والسلام مدهن وارس سوق اسكمجلين إلهي وحولي لئن شكرتم لأزيدنكم marka mahadnaq oo ilaahay u mahadnaqa in caafimaadka loo sii kordhiyo darteed dana hamziyada ayuu alifay. waayahay markaan dhammaynaan insha allahu tacaala kusoo qaadan doonaa hamziyadii iyo nafaxaadkeedii iyo imaamka waxyaabaha uu ka dheefay. hadda waxaan soo gaarnay abyaadii aan dhaanay ilaa iyo 456 beyd waaye gabayga waxaan soo gaarnay amba beydka 174. saa arkaysiin meesha ku qoran maanta cashirkeena waa cashirkii 7aad. سيدي إمام البوصيري كتاب كيسي أنكو قد جرني محايا لكتابك إن حد إن لقى أخري ما هنا هدي وحبا لقى أخري فهم كيسات كاناي مركو واسكا ترتيب سينا من ضرب الكل فات الكل هنا وحبا أخرينو ولا فهم وحا كفي عنا وحير انت قدر أنك قارنو أنا أخرينو ضدك أن لقود دالين انت أصلا إن شاء الله تعالى فهمه مركا الدالو على خير كفاعلي أدي كان أحبابتيني ولا لهين كلا لو ذاك 10 قفل كجرو هسي شير قريسي أجر أو وهلو ilaahay dartiis kaliya aan iskugu nimid ilaahay dartiisa nabigu u amaanayna ilaahay dartiisa wax u sheer gareeyna wax hadafa kamalihin iyo xataa youtube xataa ma ayna ku kala kacsanayna youtube waxaan u galeeyna waxaan ka rabnaa qof walba walaala bari inuu ka heli karo sida burdii aad uga hesheenba youtube waxa ku qori kartiin Abu Bakar Abshirow hamziyadan 10 la soo dhaafay kulli waa ku jiraan qeyr Allah siiye khaliifka asigoo nala joogin oo markasta 10 kam ku dhamaadaba oo youtube ka geliya si diinkii dacwada ugu adeego sida meeshaan farsamadaba waakeen Nuurudiin asigana si fiican oo habsami oo u duubo mar kulligood ajray karaba ilaa dirtay karabaan maahane qof maanta wax lagu siiyo amba sumcad kale iyo adduun wax ku saabsan ka raadiyahay mala adduun waa loo bari waxay taamale mid aakhira ka fiican sidii Imaam Buusiri waxa ma ku alifay anaka waxba nooga marabin gooniye laakiin markasto qaal muallif rahimahullahu ta'ala li rawa anfa'isa marka qofka sababkaas wuxuu ka yeelaa insha Allah ta'ala si shar gareeya waxba idin ku dheeran 10 kan guda galina. وأزالت بلمسها كل داء أكبرته أضبة وإساء وعيون مرت بها وهي رمد فأرتها ما لم ترى زرقاء وأعادت على قتادة عينا فهي حتى مماته نجلاء أو بلثم التراب من قدم لعنت حياء من مشيها صفواء موضع الأخمص الذي منه للغال بإذا ما الجئ أقاض وضاء خضي المسجد الحرام بممشاها ولم ينس حذاه إلياء ورمت إذ رمى بها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء دميت في الوغي لتكسب طيبا ما أراقت من الدم شهداء فيا قطب المحراب والحرب كم دارت عليها في ضاعة أرحاء وأراه لو لم يساكن بها قاب لحراء ما جد به الدماء. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. waxaan ku guda jirnay sida la socotiin mucjizaadkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam
oo haddana shiiqa ou tamaniyey kadib markay usoo dhammaatay aragtida iyo la kulanka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sayidi imaam busayri aragtida markuu tamaniyey wuxuu ka hadlay quruxda nebiga wejigiisa alla wejiga arkeena haddana wuxuu yihi alla gacanta shumiyeena nebiga calayhi salaatu wasalaam marka gacantii waxqabadkeedii waxay tartay waxay abuurtay qisada cashirka hore hadii lagu laabto sayidii salmaan farisi oo kale see u anfacday dagaaladii ay ka qayb qaadatay waxyaabahaas oo dhan oo gacantii intuu ka gaaray sayidi imaam busayri ilan waa nadmi ayuu kasoo hadlay weli markii gacantii sharafteedia socoto marka inta wuxuu kusoo qaadanaa sayidi imaam busayri dad badan oo jiran oo gacanta nebiga ku caafimaaday waa yahay sidii wiil jinni qabay camal ee hooyadiis nebigu keentay calayhi salatu wasalam xabadka intoo ka dharbaaxay wax madoow oo soo tufay markaasuu cunugi reestay sidii sayidina cali oo kale oo daaf qabay oo nebiga calayhi salatu wasalaam hal ii keen inta dhahay gacanta nebiga sharafta badan inta la mariyey oo sayidina cali haddana oo reestay sidii sayiduna qataada oo kale oo asigoo dagaal ku jiro ish intay ka dhacday ishi daanka ee soo fuushay nabigeena calayhi salaatu wasalaam gacantii sharafta inta ku qabtay ishi oo meesheedii ku celiyey haddana ishi sideedii ay naqatay ee kasii fiican sidaasoo kale markuu ka hadlo wuxuu usii gudbaa haddana cagta nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ay qabatay isoo u tamaninayo wuxuu yihi wa azaalat wuxuu ka hadlaa marka gacantii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee sharafta badneed wuxuu yihi wa azaalat way zuulisay uu yihi gacantii nabigeena calayhi salaatu wasalaam bilamsihaa taabashadeedii gacantii ayay waxay ku zuulisay kulli daa'in cudur oo dhan wa azaalat bilamsihaa wa azaalat gacantii waxay ku zuulisay bilamsihaa taabashadeeda keliya kulli daa'in cudur oo dhan cudurkaasoo wuxuu yihi akbarathu adibaau akbarathu ee weyneysatay ee dheen wax laga qaban kara ma leh adibatun dhaqaatiirtii ayaa u taag waayay cuduradaas iyo wa isaa dadkii bukaanka ahayna waxay dhaheen cudurkan cudur laga raysan kara maahan ayagoo saas dhahay ayuu nabiyullaahi moxamed gacantiis ku daaweyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa azaalad gacantii nebiga oo inuu shumiro buu ka sheekeynaya oo waxaas abuurtay wuxuu yihi way zuulisay oo way tirtirtay uu dhahay bilamsiha gacantii sharaftale taabashadeeda kulli daayin cudur kasto taabasho keliya ku daaweysay faleeba iyo daawo iyo inta kasii ordiya maahan qofka hadduu kaniini cuno wuxuu leeyahay kaniinigaan ku reestay waxa caafimaadka wado ilaahay waay subxana wata xaqiiqatan kaniiniga waa majaaz waa wado loo maro sababa bisle kaniinigaas ilaaha abuuray gacanta nabiyullaahi moxamed ilaaha abuuray gacanta nabiyullaahi moxamed daawo kastoo koonkan la keenay ka fiican dhakhtar kastoo adduunkan yimaada nebigaa ka dhakhtarsanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh akbarathu ee weyneysatay yacni way ku weynaatay waa cudur ay u taag weeyaan waxaa dareemaya virus yar ay leeyihiin virus hibila la dhahaa ee haddana wax ka qabi waayeen caalamkii o dhan aqalqalgeliyay corona virus marka maxaa u maleeyahay wax aan xataa magaciisa la sheegi karin oo corona virus aan la dhihi karin qof jirno jinni ku dhacay oo xabadka inta laga dharbaa wax soo tufaysa oo kale marka akbarathu dhaqaatiirtii ay u taag waayeen adiba dhaqaatiirta u taag waayeen waxay dhahen cudurka cudur weynin badan waay maxay ka weynin badan wax ma ka qaban karno iyo wa isaa dadkii bukaanka ayagana waa iska quusteen waxay dhaheen cudurkan lama daaweyi karo nabigaa daaweyey calayhi salatu wasalaam gacantii sharafta loo ku daaweeyey wa cuyuunun wuxuu yihi wa beri-at way reysatay cuyuunun ila ayaa reystay marat ay martay gacantii nabiga sharafta badneed calayhi salaatu wasalaam bihaa bisababihaa gacantii sababteeda ilahiyaa ku reystaba walxaal hiya ishaasuba rumdun ay tahay mid daaf qabta fa aradhaa gacantaasi ayaa tusiday ishi maa lam tara zarqaa zarqaa-ulyamaama gabadhii la dhaho gabarh waxayd aada u arag badan qisadeed aad ay u dheerta haddii aan wax ka taabanno yamaama waa magaalo kamida ardu najdi sacuudi carabiya ku taallaa gabarh waxaa joogi jirtay zamankii hore la dhaho zarqaa-ulyamaama gabadhaasi ilaahay wuxuu ugu deeqay aragti wanaagsan waxaa la yidhi waxaa laga arkay gabadhaasi caano tincad haddii lagu rido qofka dadka ugu indhaha badan lama arki kariyo caano ayaa tincad lagu rida markaasay ka dhex aragtay gabadhaasi oo soo qaada imaam busayri marka carabta ku mahmahdo qofka indhihiisa markay kuwaaliteed leeyihiin ee indhihiisa fresh yihiin oo dadka kaleeto inta badan oo ka aragti badan yahay waxaa la dhahaa ra-aahu kamaa tara zarqaa-ulyamaama gabadhii zarqaa-ulyamaama la dhaha magaalada yamaama joogtay oo zarqaa maxaa loo yidhi indhaheeda bulug bulugay ahaayeen waxaad moodaa in la mariyay indha kuushaan la yihahdo ahmadka uu nabiga ammaanay calayhi salaatu wasalaam
uu yidhi indhaha nuurkooday ziyaadisaa, indhaheeda dhanba bulgbulugay ahaayeen, aaday u qurux badnaayeen. haddana gabadhaas waxaa la yidhi 300 oo kilomitr wax ka arkaysa, 3 maalin inti loo socday wax ka arkaysa. dadka juhali ahaan waa isdagaalayeen, yamaamada ay joogto magaalaan ahayn haddii qolo kale kasoo duusho oo caraba ay rabaan qolada inay kusoo duusho, isgaarsiin kale ma jirin. zarqaa-ul yamaama jihada ay kasoo socdaan hadday fiiriso, hadday 2 beri kabacdi kusoo aadan yihiin, waxay leedahay meel hebel un dhaweyn colaa kasoo socdo qalab noo watanag. dadka mar waxay isdhihi jireen gabadhan waa cabsiye ka tahay, reer hebelna isdagaashantiina ogyihiin. haddana siday u sheegtay naqa jireen, maxaa yeelay meeshaasaa ilaahay wax ka tusay, manaha kashfi kale ee indhaheeda waxay yihiin derbigan wixii ka xageeya xataa inay arkaan iftiinka ilaahay siiy indhaheeda. marka indhahaas wuxuu ku cabiraa marka indhihii nebiga masaxaya kasii nuur badan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. sayidina cali markuu daafka ku dhacay ayadoo qaswatu khaybara la aadaayo, nebiga uu yihi calayhi salaatu wasalaam maanta waxaan rabaa inaan calanka u dhiibo qofuu ilaahay rasuulkiisa jecelya asigana jecel ee qof walba tamanisa in ayada naqato. asxaabta markuu fiirsho wuxuu yihi sayidina cali aw nabiga calayhi salatu wasalaam waxaa la waajirinayaa nabiyullaahi maxamed oo cindahu ramdun daafa ahaayo. nebigu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam halii waco. sayidina cali aa nebiga loo keenay asoo daaf qabo xabaan u jeedin, nebiga tuwa u dhaha indhahu ka mariyay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh, gacmihii sharafta badan. qisada marka soo isku haleeshiyaa fiir say naqata marka daaf dambe indhihiisa kuma dhicin, maalin dambe indhaha ma xanuun sayidina cali asagoo indhihiisa freeshihiin ayuu dhintaa lagu duugay. mar dambe markii la weydiin waxuu dhihi jiray daafka inta ugu dhac indhihiisay ahaayeen, markii daafki ugu dhaca oo nabiga ugu tufaaba kasii iftiin badanba. kadib waxa uu ka dhigay khaybaran in duulaanka looga sheekey maan wax laga sheekey kara maahan, weli ilaahayna waa ahay dagaal badan sayidina cali oo diinta wax badan usoo qabtay karama allahu wajhahu waradia allahu canhu. wa bara-at way raysatay cuyuunun ila ayaa raystay, marad ay martay gacantii bihaa bisababihaa, indhahaasi waxay ku raysteen uu dhahay gacantii sababteeda, walxaal hiya gacantuba ishuba ay tahay rumdun mid daaf qabta ay tahay. fa arathaa fa arat iraaxatu ou ka cabiraan marka gacantii ayaa tustay maa il ayay waxay tustay maa lam tara zarqaa, gabadhaan hadda ka sheekaynay oo tin cad haddii caana lagu rida ka dhex arkaysa waxaysan arkin ayay isha sayidina cali aragtay. zarqaa yamaam wala fahmaa umaleha maxaa sayid imaam buuseyri wuxuu in aad wax u yaqaan. haddii aad rabto zarqaa yamaam inaa fahamtani waxaad ka fiirsaa buwaagta carabta oo taariikhiga dhan waa ku qorantaha, buwaag badan looga sheekiyey xataa waa lagu gabyey zarqaa yamaama. carabtuna way dhahan dadka carabi yaqaano qofki aad wax u arkay waxay dhahan zarqaa yamaam oo kalaa tahay, laakiin dadka carabi qoon ma fahmi karaan zarqaada maxaa laga wadaa ay isleeyihiin. marka waa zarqaa yamaama uu soo gaabsada sayid imaam, ilan wuxuu ka rabaa in uu buuxiyo qaafiyadii hamziya. zarqaa yamaama hadduu dhihi lahay oo si fiican kaliir looga dhigi lahay, hadda yamaama ma noo noqoto hamziyo, qaafiye ma noqon karto. azarqaawi hadduu dhaha marka in la fahmo imaamka aad uu carabi u yaqiinay, zarqaa yamaam uu ka wada. sidoo kale meeshan wuxuu ku gudagelaa xadiidkii sayidina jaabir oo uga sheekeeyey sayidii qataadadu nucmaan markii dagaaladii lagu jiri jiray dagaalkii uxud isha ka soo dhacday oo ka sheekeyha. wuxuu yihi waa caadad gacantii ayaa soo celisay calaa qataadata caynan, qataada waxay u soo celisay ishi. qataada ishi markay dhacday ee daanka fuushay waxaa soo celisay gacantii nabiga sharafta badneed alayhi salatu wasalaam. ilaan uxuda dagaalkii u gala ishi soo dhacday intay fuushay, nebigu u yimid wuxuu yihi nabiyullaahi maxamedo waxaan rabaa gabar yaroo qurux badan oo carbeede, nin ilaa waxay ku falaysa male, isha booskeeda igu celi. dhaqaatiir daaweyeysa male, bal fiir il meeshaan timid yaa daawey karo, waxba looma qaban karo. nebigu wuxuu dhaha alayhi salatu wasalaam jannada miyaan kugu duceeyaa mase ishaan booskeeda kugu celiyaa? qataada wuxuu dhaha labadaba waa raba. nabigeena alayhi salatu waslam aad u naxariis badnay, naxariistii waa kasoo sheekeen ilahi inuu yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina. ishii booskeeda ugu celiyo jannadana waa u ballan qaada, jannada insha allah waa geliyo dhah. marka waa caadad way celisay gacantii nabiga sharafta badneed, gacantaasaan rabaa inaan shumiyo leey gacantii u ka hadlahay. caynan ilay celisay calaa qataada, qataadii u celisay. waata sayidina shee cabdi kitaabkiisa majmuuculxaawiga ah markii baxrulmutaqaaribka gabya uu leeyahay waqad radat caynan lisaaxibihi qataadata bacda alcama btahala. waqad radda caynan lisaaxibihi qataadata bacda alcama btahala uu le sayidi shee cabdi celi. fahiya wuxuu yihi markaasi
ishaasi annajlaaw il weynay naqatay xataa mamaatihi ilaa isha ay ka dhimato. maxaa ka wadaa mamaatihi dhimashadaas waxay u naqanaya qataade marka qataade ilaa oo ka dhinto oo qataade laga oofsado ishii waxay ahayd isha najlaa waxaa la dhahaa isha bini aadamka markay qurux badan tahay weynta marka waxaa wadaa weynigaas weyni wax arkaayo u ahay labada il ishii nebiga ou dabiibay calayhi salatu salaam iyo ishi kale waxaa nuur badnaa ishii nebiga dabiibay waa il dhacdayad oo nebiga dabiibay calayhi salatu salaam ishi kaleeta waa ka nuur badneed markaas wuxuu ka cabiraa marka sida hamsiyadan u toosto annajlaaw il weynay naqatay maxuu ka wadaa marka il waxay naqatay qurux badan aragti badan ay naqatay saasoo ka cabiraa sayidii imaamu lbusayri raximahu llahu raxmatan waasicatan wanawara allahu dariixahu. ow bilathmi turaabi marka haddana meeshaana waxau leeyahay markaas laytahu khasanii bilathmi turaabi saasaa laga cabiraa laytahu ninka shaleetadiisiiyey ilan tajriidka weli isticmaala khasanii ani ilaahay uu gaar yeeleena bilathmi turaabi cara inaan shumiyo oo macsiyo haye caradaasoo min qadamin qoob xaggiisa ka ahaatay cagti nebiga waa calayhi salatu sharafta badneed xaggiisa ka ahaatay haye cagtaasoo laanat ee u jilcanaatay asafwaa u dhagaxda xayaa-an liajli xayaa-an xishood dartiis min mashihaa cagtaas socoshadeeda daraaddeed nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulkaas jaziiru carab dhul dhagaxyaa ahay buura buuraleye hadda kaba kastoo hadda la heli karna waagaas ma jirin waa qiyaasi kartaa 1500 sano kabii jir kaba dacas camal oo jilcanay ahaayeen oo dadka ku socda dhagaxda ay mudi karaan dhagaxda ay dhibayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam dhagax hadduu ku istaagay sida isbuunyadu jilcay ilaan gacan ilaan lugta ku istaagtay cagta ku istaagtay cag caadiya maahan waa cagti nebiga calayhi salatu wasalaam ay sharafta badneed markaasuu yidhi ow amase laytanii oo ka wadaa khasani igu gaar yeeleena bilathmi bal fiiri soo uu jilcan yaha ugu tawaaducay nebiga jaceylkiisa bilathmi turaabi cara inaa macsiyo waa careede caradana xitaa marka caradaasoo min qadamin cag xaggeeda ka ahaatay cagta nebiga sharafta badan cagta nebiga meeshuu saaray oo ka cabira cagta nebiga meeshuu saaray raadka bini aadamka markii la arkaayo raadka nebiga haddaan arki lahay macsi lahayna macsi lahay uu leeyahay ila nebiga sooma gaarin cagta see u tiiri marka cagteena camal miya la cagtaasu wuxuu leeyahay marka laanat ee u jilcanaatay asaf waa u dhagaxda xayaa-an min xayaa-in xishood dartiis dhagaxyaa ka xishoohay nebiga calayhi salatu wasalaam halka bidcada ay ku dhiirinayso ee nebiga ammaantiisay diidan yihiin min mashiha cagtaas nebiga sharafta badanna socodkeeda daraaddeed nebiga meeshuu ku socdaba dhagax waa iska jilcanaa isbuunya iska naqanaa u dheh sax waay mucjizaadka nebiga kamid aheed nebiga dhagaxda lugtiis kuma adkeen oo markas way u jilcanaayeen waayahay wuxuu yihi marka imaamu lbuseyria wato mawdici lakhmusi akhmus waxaa la dhahaa akhmasna waa la dhahaa rees magaartada qofka bini aadamka cagtiisa markay saan u taagan tahay faraha iyo inta ay saaran tahay iyo ciribta inta ay saaran tahay meel udhexaysaa jirto oo goda oo rees magaarta ah rees magaartada bini aadamka marka qofna rees magaarta ma leh qofna rees magaartiis waa weyn tahay qofna rees magaartiis waa yar tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam rees magaartiis rees magaarta yar ee muctadil khalqi ahayd ilaa nebiga markas waxaan uga sheekeyna kaana muctadil alkhalqi bini aadamka dhexdhexaadka uu nebiga ahay calayhi salatu wasalaam rees magaartidiis nebiga ma weyneyn rees magaarta la-aanna ma ahayn ibr ma ahayn rees magaarta yar oo qurux badan oo lahay marka meeshuu cabira wuxuu leeyahay markaas ow bilamthi turaabi meeshuu ku yiri ow amase bilamthi wuxuu leeyahay macsiyeena mawdic alakhmusi rees magaartada meesheedii cagta nebiga hadduu saas u saaro dadka reer baadiyaha rees magaartada diyaarka waxay dhihi jireen meeshan waxaa maray hebel meesha rees magaartada ah xataa haddaa macsiyi laha waa idha caleed o dhan oo carada isku soo kuusantay ha nebiga calayhi salaatu wasalaam barzanji waa tuuley kaanamaa yanxadu min sababin irtiqaahu asoo tartiib u socodana waxaa qabtaa inuu meel degaan dega oo ka degaan deganayo qofka la socoto waa rucleyhi nebigana waa socdaa calayhi salaatu wasalaam fudeedka ilaha lugtiisa geliye marka waxuu dhah meeshuu cagtaa rees magaartada makaankaas mawdic meesha ka wadaa mawdic meeshay ku istaagto dheh mawdic alakhmus meesha ay ku istaagtay rees magaartada macsiyeena waayah alladii meeshaasoo haye widaa-un wuxuu yihi firaash u ahaateena lilqalbi qalbiga minhu mawdicaas xaggiisa firaash iga ahaateena idaa waktigii madjaci ani makaanu jiifkeygaba aqada ou cara dhaco nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa wuxuu yihi meel oo intou ku jiiftay
carayar ee kasoo gaarta xataa haddaan heli lahay aniga wuxuu yiri firaasheeb ina qalheedo dhah meel aan jeefto meesha igu fiican meeshaas ahleedo dhah meel caraahu nabiga jeefto xataa haddaan ku galgasho oo qalbiga aan ku degso dhah widaa marka waa firaash intee u naqeen marka jasadka aad ka fikirey ninka wuxuu ka fikiraa qalbigiisa ilaa jasadka waxa laga xukumaa qalbiga bini'aadanka wuxuu yiri marka widaa gobol u naqateena firaash lil qalbiga u naqateena idaa waqtigi maljaci ani makaanu jiifkayga aqadda oo cara dhaco saasuu ku cabiray sayid imaam Busayri hadiyal masjidul xaraam hadiya waxaa ku dheefsaday oo ku liibaan nabiga calayhi salaatu wasalaam almasjidul xaraami masjidka xurmada lahaa masjidka kacbada ku yaalo oo masaajidoo dhan u fadli badan bimamshaaha cagta nebiga ku socoshadeeda muxuu soo qaatay marka masjidul xaraam oolo masjidul xaraam iska ahay oolay kacbadeed qiimo lahayd markii nabiga lagu dhalay calayhi salaatu wasalaam laakiin haddana sharaf ugu korortay masjidul xaraam nebiga ku socoshadiisa hadduu nebigu ku soco lahayn wuxuu yiri soo maanta sharafta uu leeyahay heerka uu joogo magaari lahayn hadiya waxaa ku dheefsaday oo ku sharafoobmay almasjidul xaraami bimamshaha cagta nebiga ku socoshadeeda darteed walam yansa mana iloobin oo dhahay iiliyaa baytalmaqdis xaddahu nasiibkaas ha waayahay hadiya almasjidul xaraamu masjidul xaraam ayaa ku dheefsaday bimamshaaha cagta nebiga ku socoshadeeda walam yansa mana ilaabin iiliyaa baytalmaqdisne xaddahu xaddul iiliyaa baytulmaqdiska nasiibkiisana ma iloobin oo baytulmaqdis laftirkiisa awal nebiga intuu jirno baytulmaqdis ahay laakiin nebiga hadduu tagay sharafa u ziyaaday cagta nebiga calayhi salaam sharafta badan ayaa taabatay yiri wuxuu marka masjidul xaraam iyo masjidul aqsa u soo qaatay oo madiino u sheegi waayay maxay tahay madiino waxaa la madiinatu rasuulillah koor maxay jatrib iska eed ha bayba la yiri madiinatu rasuulillah marka galeysana qubaysta laga rabaa qubaysuna qubaysato adoo carfaayo oo qurux badan oo nidaamsan oo qushuucsan ee nabiga ku faraxsan inaa gasho oo bidii bakhtiyaan ahayn oo qalbigiiska kanya ay kula tahay inaa maartay xaafad caadi suuqa bakaaraha galeysa maahan taas akhlaaq maahan jasadka nabiyullah sharafta badnaa madiina dhaxyeel xulay sayidi shaad rahmaan zaylici dariixu rasuulillahi qad faaqa jannatan qabriga nabiyullah maxamed wuxuu ka sharaf maray jannada wa carshan wa kursiyan wa ka sharaf maray kada kulli mawdicin meel kastoo kugu soo dhici qalbiga ku soo dhici lahay qabriga nabiyullah maxamed ka sii fiican u dhahay naam nabiga sayid alayhi salatu wasalaam qofka xajiso ee haddana qabrigiisa soo ziyaarato qiyaamaha u shafeeca intee kaloo lagugu shafeeca haddaad tagto markaa cajis ka bacdi laa ya akhi ha marka tiin baraha lagugu dhufaayo waa xajkaaga inuu qabuul yahayba ha ilaah aqbalka iskale laakiin nabigu muxuu leeyahay shafeecadaas maxaa ka fahmi ha qofkii xajiso waa u shafeeca nabigu mariya qofkii xajiso ee markaa dhinta ka bacdi qabrigeyga timaado nabigu wuxuu dhahay alayhi salatu wasalaam anaa u shafeecay shafeecada u waajibaysa weliba ilah shafeecada nabiga na geli wuxuu yiri markaas waramat way haddana way barartay u dhahay cagtii ka hadla cagtii weli heystaa soo u jecel yahay cagta nabiga calayhi salaatu wasallam sharafta leh way barartay u dhahay id waqti ramaa oo ku gamay bihaa cagtaasi dulma leyli habeenkii mugdigiisa habeenkii mugdi waa dadka inay hurdaanay jecel yihiin haddana cibaado u taagan ka wadaa oo ku gamay ilallaahi ilaahay dartiisa ku gamay khowfu cabsidiisa iyo warajaa rajadiisa cabsi oo ilaahay ka cabsaayo iyo rajo ilaahay oo rajayahay waa nabiyullaahi maxamed oo la yiri qad gafara allahu laka maa taqadama min dembika dembi dhan bal nabiga alayhi salatu wasalaam ha jannada axadka ugu horreeya albaabkeeda gargaraaca u galaya waa nabiyullaahi maxamed axadka ugu horreeya qiyaamaha dhulka soo baxay waa nabiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddana habeenkii muxuu u taagan yahay waata leeyahay Busayri dalamtu sunnata man axya dalaama ilaa an ishtakat qadamaahu dura min waram washadda min saqabin axshaahu wadawa taxta alxijaarati kashxa mutrafa aladam marka sayida Aisha markay tiri maxaa nabiyullaahi maxamed cagaaga saan ugu barbarayaan adigoo ilaahay dambigaaga dhaafan wuxuu yiri afala akunu abdan shakura ma waan naqeen adoon ilaahay uma naqay ilaahay adu inacmay oo dambigaaga la dhaafana ilaahay uma naqawda wuxuu yiri marka cagti heystaa weli damiyat cagti way dhiigawday dhiig ayaa ka da'ayba fil waqa dagaalka dhexdiisa nabiga dagaal uu galay wax badana imaahaya xataa markuu daa'iftay waata sufhaadii cibadadii adoomadii nabiga tuureeyay la yiri ay nabiga daqar u geyseen dhiigii nabiga ka daa calayhi salaatu wasalaam ilaa cagtiisii ay qoysay cagtaas dhiiga qoyay sharafteeda ku hadlaa marka damiyad way dhiigooday dhiiga ku hadlaaba fil waqa dagaalka dhexdiisa haye lituksiba si u kasbato maama ladiki
araaqad ee shubtay ashuhadaau dadka shuhadada oo dagaalka fii sabiilillah ugu dhinteen oo min adami dhiig ah diiban si ugu kordhiso maxaa yeele waxaa la dhahaa dadka shuhadada dhiigooda si macnawi u carfaa miski oo kale laakiin waxaa sii caraf badiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam dhiiggii lugtiisi gaaray nabiga maadaama mar irig wax laga gaarsiiyey mar nabiga aan kasoo sheekay nabiga calayhi salaatu wasalaam daqar yar loo geystay wejigiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mar addoommadii wax ku dhudhufteen waxaasoo dhan dhiigga nabiga ka yimid waxaa lagu carfinayey dadka shuhaadada dhiigooda ula sayid imaam busayri damyat way dhiigooda fi lwaqa waqaad macnaa xarbi waay dagaalka dhexdiisa lituksiba si ay wax ugu tarto maa ayiladii kii araaqat ay shubtay ashuhadaau shuhaadadii oo min adami dhiig ah diiban si ugu kordhiso caraf mafcuul thaani uga dhig fahya wuxuu yihi markaasi wuxuu ka hadlaya weli cagti nebiga ee sharafta laheed wuxuu yihi marka cagti nebiga ee sharafta laheedne waa qudbulmixraabi mixraabkii hogaan u tahay mixraabka waa meesha loogu talagalay waa meel dagaal cibaadada loogu talagalay shaydaan lagula dagaalama shaydaan ma ogol in la cibaadeysto saasaa marka mixraab loo yihi mixraabka marka cibaadada haddii la wado yaa sayidkaa qudubkaa hogaamiy u ahay nabiga alayh salatu wasalaam iyo wal xarbi dagaalkaba marka wuxuu yihi cagtaa nebiga ku talo sharafta ban alayh salatu wasalaam waxay hogaan u tahay cibaadada iyo waxay u tahay jihaadka diinta loo soo maray kan badanaa marka saasuu leey marka kan badanaa hw dhaha markaas daarad arxaau qabaa'ilu carabba in ay qabsadeen calayhaa cagtaasi korkeeda fii daacatin xaal ay daacad u dagaalamayaan qabaa'ilu carab waa isdagaalayeen wuxuuda baadilkaa ilaahiy intuu tago nabiga intuu tago kala joojiyey wixii baadil ku dagaalamaya xaq ku dagaalamayane nabigaaba ku jiraba marka cagtan wuxuu yiri wax allaalo waxay qabatay oo xataa laga fahmi kara carabta haddii dagaal sokeeya isku sameeyaan cagtaana daacad sabab u aheed oo dhah nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo kula dagaalamayo marka cagta nebiga wuxuu yiri wixii hogaamisay dagaalada oo diinta loogu gargaarayo iyo cibaadadaba ayadaa hogaamisay uu leeyahay wa uraahu waa yahay wa uraahu nabiga waa lay ogeysiiye u leeyahay aniga low lam yusakin busiri ah warka wato low lam yusakin nebiga hadduusan xasili lahayn bihaa cagta nebiga sababteeda hadduusan ku xasili lahayn wuxuu xasili lahaa xiraa waa marka xiraan hadduusan xasili lahayn maajat bihi da'maau badda xataa hirkeeda waa kici lahay marka hadda wuxuu kinaayo isticaaro ka dhigaa nebiga markuu tegey jabalka la yihahdo uxud markuu tegey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo jabalu xiraa xataa markay fuuleen nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigaa kore calayhi salaatu wasalaam wa maxaw abubakar wa cumar wa cuthmaan buurta way dhaqdhaqaaqday marka nabiga cagtu ku dhuftay salawaatu cagta sharafta badan cagta laga hadli rabo maanta cagtuu nabiga ku dhuftay calayhi salatu wasalaam markaas wuxuu yihi uskun falaysa calayka axadu ilaa nabiyun wa sidiiqun wa shaahidaani nabiyullaahi moxamed iyo sidiiq abubakar sidiiq waay iyo labadii shahiid ee u sharaf badneed ummadda kale ayaa korkaaga saaranay marka wuxuu yihi jabalkii walba waa nebiguu rabey waa iska degay marka waa iska dhaqdhaqaaq waa joojiyey marka da'maa waa bad laakiin maanta jabalkii laga cabiruya waxaa rabaa hamziyada inay kusoo dhamaatay kaafiyo da'maa laakiin haddii lagu weydiiyo luqadahaan waa albaxru maajadna waa mowj hirki waay badda xataa hirkii kaceed maxuu ka wadaa yani maalintaas cagtaas dee sharaf lahaa lahayn buurtaas ay fuuleen waaba la gadoomi lahed waxa ay wado cagta sharaftana lagu jag lagu siiyey way ku qanacday marka dhaqaaqdan ma sameyn wa uraahu waa lay ogeysiiyey low lam yusaki nebiga hadduusan xasili lahayn xiraa xiro hadduusan xasili lahayn maajad bihi da'maau baddaa hirku ku celaheed oo buurta dhan waa la gadoomi laheedba qablu horay maxaa yeele qabla taxarukiha dhaqaaqeeda ka hor nebiga dhaqaaq ka hor wuxuu yaqiinay inuu xataa jabalu xiro uu ku cibaadeysto marka xiro xirta in lagu cibaadeysto nabiga u hilowday waxay la gilgilmayso nabigana isdaji u dha salawaatu rabbi wasalaamu caleyh halkaas nebiga inuu arko soo u rabo nebiga wejigiisa inuu arko gacanta nebiga inuu macsiyo u arko waxqabadkeedii u ka hadlay cagta nebiga oo meesha ku istaagto oo macsii lahay waxqabadkeedii u ka hadlay marka uu iska soo gaabsaday ilaan lama dhamay karo inta wuxuu rabaa inuu qur-aanka galo marka sayid imaam buseyri iyo cajaa'ibta uu leeyahay qur-aankia marka aan ka sheekeynayo radeer cajaban lilkufaari zaaduu dalaala biladii fiihi lilcuquuli ihtidaau
والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم وارتقاء أولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء أعجز الإنس آية منه والجن فهلا تأتي بها البلغاء كل يوم تدي إلى سامعه معجزات من لفظه القراء تتحلى به المسامع والأفواه فوالحلي والحلواء رقى لفظا وراق معنى فجاءت في حلاها وحالها الخصناء وأرتنا فيه غوامض فضل رقة من زلالها وصفاء إنما تجتلي الوجوه إذا ما جليت عن مراتها الأزداء صور منه أشبهت سراب منا ومثل نظائر نظراء والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يوهمنك الخضباء والأقاويل وايه وحوليه قرآنك عنك هذا سيدي إمام البوصيري عجبوا أنا والله يابو يري عجبا لياب أيان للكفار قارض لياب زادوا قد زادوا حال أي زياد سدين با أي كرصدين ضلالا قال نمو قرآن كين واي مدد بالذي قرآن كي كرصدين فيه في القرآن قرآن كدحديثة اهتداء هنون أيو للعقول عقلياش أصوغ قرآن كدوي مقفل بعقل قرآن كي كدكت لكن هيك كدق وين عجبوا والله يابو يري عجبا لياب للكفار قارض الله يابو يري زادوا قد زادوا حال أي كرصدين ضلالا قال نمو يباضي وايه بالذي قرآن كي كرصدين هاي اهتداء هنون أيو للعقول عقلياش ويهي فيه في القرآن قرآن كالحديث والذي متك يسألون قال هذا ايويدين ايان منه نبي ايويدين ايان كتاب وايوري كتاب كاسو منزل لسودجي قد حقيقة ام بكسفي ام بكحالي أتاهم نبي ويمت يورتقى وحي أتاهم أيقا ويمت وارتقى وحي وحياس ويمت حتى كما إيسان قنعين ووحي ليهن لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وردارت عركا استاق وحارتكين أنا وحان كو قنعنو نومهيسيد وحان واحد شيغيس أنا كمان هذيك عركا قل قرآن اللي وسود جادويسا عركا تك يا دارت هذيك سوق هذا واحد شيغيس أنا كان أنو آخر وحاس وعدد قلبي قرله ما أبو جهل وحمق له وكسر شاكيني هي أبو لهب وحاس بختي ذات كلام ذا لقى هذا الأمر والذي كي يسألون ويدين يعني منه نبي حقي كتاب وكتاب كاسو منزل لسودجي كتاب كاسو قد أتاهم ويمت يورتقى وحي نقولهم بملي أولا ما يكفي موليها مركز سيدي إمام بوصيري مياسن كفلنين ذكر حص قرآن كوكوضا كل ما يثاب ذكر الله ذكر تحلها وحول بوثب لقاسي ها توحيد لا إمام لا إله إلا الله نبيك صلى عليه الصلاة والسلام حضارة تصبيح لا إمام حضارة الله أكبر ما ترى دلدل تكبير لا إمام وح الله الوحي ثواب لقاسي فهو ذكر إصطلاح سوليه مركا قرآن كسو وين مركا قرآن كأوين ذكر قرآن كأوين مجرو قرآن كعبرة مركا أولا ما يكفي مواسن كفلنا ذكر قرآن كهلية مركا ذكر راسه من الله إله حقي سكيم مواسن كفلنا فيه قرآن كدحديث رحمة النحريس وشفاء عافية ماذا للناس ذات كويه ساسو لسيدي إمام بوصيري صح واي أعجز الإنس آية منه والجن وتولي مركز سيدي إمام بوصيري أعجز آية أي عجز جلسي آية داسو منه من القرآن كحقي سكات الإنس بني آدمك والجن جنك ويعجز جلس وحي قبا كرامة دي أركان أيضا كلمة بالله إما كرامة dadka carabta ah oo quraanka soo degay joogo qurash yaani aayada markay soo degto in loo fasiro baahneen luqadooda ku soo degays waxba u baahneen fasda' bima tu'maru wa arid 'an al-jahiliin oo kale oo fasda' la jahr lagu macneeyo ayaa luqada carabi waxay dhahdaa dhala jabin way in anta fiir shuhur isticaaradan oo kale wax binaadan alif karama qofka marka qalbigiisa wax soo jiidahay way quraanka bal qofka markasta uu carabiga ku sii daqiiq ku sii yahay wax si anfici kara way مركز سوير مركز أعجز الإنسان آية منه والجن آية قرآن كمدة وهي عجز جلسي إنسي الجن فهل لا تأتي بها البلغاء
alla aftahanimada la imaadeena qur-aankan dadka aftahanada ah qur-aankan ma la imaan karaan may tacajub le waay iyo tamani fahalla la imaadeena fahalla ta'tii biha albulaqaau alla bulaqada la imaadeena maba la imaan karaanba bulaqada waxay ka qaban karaan male qul la in ijtamacat alinsu waljinu cala an ya'tuu bimithli hada alqur'an laa ya'tuuna bimithli ma la imaan karaan kula yawmin tuhdii ilaa saamicihi u le marka sayid imaam busayri tuhdii ka bilaab marka tuhdii waxay gaarsiineysaa alquraau dadka qur-aanka akriyo waxay gaarsiiyaan qur-aankaas waa yahay min lafdihi min lafdi اlqur'aani qur-aanka lafdigiisa tuhdii waxay gaarsiineysaa alquraau dadka qur-aanka akrihayo min lafdihi qur-aanka lafdigiisa mucjizaatin mucjizaaday gaarsiineysaa mucjizaadka hormar sadaarata tuhdi qura quraadii ayaa gaarsiineyso mucjizaatin mucjizaad ayay la gaarsiineysaa min lafdihi mucjizaadkaasoo min lafdihi qur-aanka lafdigiisaba ilaa saamicihi dadka dhegeysaa mucjizo ay ku tahay kula yooman fi kuli yom maalin kasta bal qur-aanka dhegeyso wax mucjizaa maqlaysaa oo dhegtaada ku culus qofka qur-aanka dhegeysaa iimaanka leh oo carabigu fahmaya qur-anka haduu dhegeysto wuu siiyaaba xataa hadduu tafsirka dhan yaqaan maalin kasta waaba siiyaabayba il kala kaaga sii baxayso wuxuu yihi tuhdii way gaarsiineysaa alquraau dadka qur-aanka akrihay bis qur-aanka bis ay akriyan waa fahmi macni mucjizaatinay gaarsiineysaa mucjizaadkaasoo min lafdihi qur-aanka lafdigiisii ah ilaa saamicihi dadka dhegeysahayo kula yowmin fi kuli yowm maalin kasta tataxallaa bihi almasaamicu walafwaahu tataxallaa waxay qurxinaysaa almasaamicu maqaladaa ku qurxoomaayo bihi bilqur'aani qur-aanka walafwaahu iyo afafyaasha fa huwa qur-aanka alxuliyu bilad uu yahay iyo qurux maqalka uu yahay walxalwaau macaanna wuu u yahay afka oo muxuu cabira daaye maqalka dhagaha ou ka cabiraa dhagaha gabdhaha dhagaha markii dhagadhaga loo xiro iyo gabadha markay dhagadhaga u xirnayn waxay qurxoontaha markii dhagadhaga loo xiro afkana markuu eber yahay iyo markuu malab ku jiro wuxuu macaan yahay markuu malab ku jiro qur-aanka si u cabiraada marka tataxallaa ay ku qurxoonaanayso almasaamicu maqalada bihi bilqur'aani qur-aanka walafwaahu afyaashana ay ku macaansayso fa huwa qur-aankan aan sheegay inuu dhahay alxuliyu waa bilad qurux badan oo dhagaha hadii la sur lala yaabayo dhegeysiga waay markaa dhegeysiis waxaa qabtaa dhagaha in wax lagu suraayo walxalwaa macaan afka waxaa qabtaa laga akriyaa inuu malab ku jiro marka alxuluw iyo walxalwaaw masaamicdii afwaadiya loo kala celiyaa sidii lafun wa nashrun muratabun camal ilahay qur-aankiisa ku yiri ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه هبينك لقى عبرها ولتبتغوا من فضلنا مالنت لأن هبينك مالنت هبينك الهرمري مالنت لقوا حجي مركان للجواب يعني هبينك الهرمري مالنت لقوا حجي مركي مشوش تان ومركله مر بدن كسو قاطا امامك مركي ان بدن بلاغه استعمال عن بلاغه او استعمالها رق لفظا وراق معنى فجاءت في حلاها وحليها الخصناء raqa waxaa waa jilacsanaaday lafdan min lafdin lafdi ahaan ilahi qur-aanka wuxuu ku yiri walaqad yasarna alqur'aana lidikr qur-aanka lafdigiisa inaad barato hadaa rabto alla jilcanaha u dhaa fududa waraaqa waa kor naqday wax gaarayna male macnan min macn xagga macnahan wax gaaraya male soo ilaah u fududiyey iyo macnihiisa iyo qiimihiisana wax isku dhow u dhah sax waay fa jaaءat ilkhansa oo gabartii quruxda badneed oo sanka yareedaa timid fii xulaaha xaal ay biladaysan tahay dhagadhaga qurux badan ay ugu jiraan waayahay waxaaliyaha xaal ay qurux badan tahay ayadoo qurux badan oo dhagadhaga fiican ugu jiraan ay tahay gabarta khansa la yidhaha gabartaa marka khansa la dhaho waa gabar oo dadka gabyo inta badan ay soo qaqaataan magaceeda aada loo soo qaqaato yacni marka khanso ayada magaceeda loo bixiya khansaa la yidhi laakiin luqad ahaan markii la cabiraayo khansa waxaa la gabdhaha markii sankooda uu yaryahay oo sankooda uu yaryahay bal gabadh markay sankeeda yartaa waxaa kasii qurux badan gabar sankeeda uu dheeryahay aa kasii qurux badan ee quruxdaa markii wax lagu heshii kara maaba nina hadda kahor waxaa la yidhi nebigu wuxuu dhaha alayhi salatu wasalaam tunkixu lmar'atu lijamaaliha quruxda noo sharaxaa la yidhi asu wuxuu yiri telefishinada maka aragteen u dha gabdha laleeyahay quruxda adduunkay qaateen oo qalqallooco caata ah ha aniga wuxuu dhaha ari xataa ma raacsiisa lahayn u dhahay quruxda qof walba waxay u taqaanaa waxaa u taqaanina quruxuu yidhi marka gabar qurux badan aa meeshaan laga cabira waxaas dhan aan ahayn oo jamiile inta dhaaftay qaaniye ah oo hadday dhagadhaga xiran xataa aan dhagadhaga u baahnayn oo dhagadhaga loo sii xiray hadda waxaasoo dhan waa isticaaro caqligaaga lagu soo dhaweynaa maahane
ورب الكعبة ولكن القرآن أغلى وأفصح من ذلك قرآنك إلهي وحاصونا كسيوين قرآنك إلهي وحو كوين هواي لكن عقل سال وكينك ردان لغو عبرين النبي قال رالي كنا غن إن لي كالشمس وقرحه كله قرحه كفلا النبي عليه الصلاة والسلام قرحه تو جرمانو أبو هريرة كأن الشمس تجري في وجهه قرحه مدة وجه النبي نقول حصوت عليه الصلاة والسلام لكن حوجا عنك واحد فاهم إنه قرحه إفتينيسو نوجه جيسو إفتيناي مركو حمك استعارين رالي على ونقضا لكن قبر قرحون أو لسي قرحي قرآن كحوي هي ولكن القرآن أبلغ من ذلك قرآن كسي حدر كسي قرح بدن وأردنا فيه قوامل فضل رقة من زلالها وصفاء وأردنا أو دا مركز وين نتصدي أو دا هي رقة جلاء نتصدي جلاء أصو من زلالها به أي معايهين وصفاء به أي سافيهين غوامض فضل شرفت مدي ذا قصون نقطة فيه في القرآن قرآنك بل قرآنك واكا صاحي فضلgiisa iyo qiimihiisa iyo macaantiisa fiiri imaamka haddana wuxuu ku tusinaa biyo hadday saafi yihiin ay haddana biyo macaan yihiin yacni wax kugu istaagi maayaan wax lagu doorsaayo ma jiraan marka qur-aanka ilaahay waaba saas uu leeyahay waxayna tusiday culumta ayna tusiday saas oo kaleeta waay wax culum la isticmaalo qur-aanka la keenay maxaa yeelay axaadiista nebiga qur-aanka ay sharaxeen salawaatu rabbi wasalaamu calayhi culamadoo dhanna axaadiista nebiga ay sharaxeen intaas waa marka waxa la qaadahay maxay quraanku waa mujmal waxa tafsiil ka dhigay oo faafaahiye xadiis nabiga kaleey sallallahu afarta madhab la sheegay wix lamid oo dhan xadiis nabiga ay si faafaahiye wa aratna riqatun doog ayayna tusido dhahay min zulaliha mashas biyeeda macaani riqadaas oo min zulaliha biyeeda macaan iyo wasafaan biyeeda saafiya qawaamida fadlin sharaf mideeda qorqorsoon ee fihi fil quraanka nagu tusiday marka quraanka culumta oo na tusiyay oo leey waxaan waajib waay iyo waxaan xaraam ah wuxuu leey quraanka iyo aqeedada oo na tusay iyo ahkaamta oo na tusay iyo qisaska oo na tusay meel kale laga helayo male alla macaan badana uu leey Busayr inma in kala ma ahane yajtali wujuhu wajiyashu waxay iska arkaan إذا ما هذا أردت ماذا زائدة إذا وقتي جليت لغا نظيفيو الأزداء مريرة عن مرآتها مرايدة أو وجهك إلهي هذه مرك لغا ترتر وجهك سفعنو سياركا قرآن كما كحودا ومرايدة صولة اسكاركا waxaa sameynayso sharci islaamka uu bandhigay waa sharci islaamkana waxaa madax waa quraanka ilaahay inma in kala maana yushtal wujuh wajiyasha waxaa lagu arkaa waa la arkaa u dhahay waan lagu arkaa wal dhaha idaa waqtigi juliyat la nadiifiyo al asdaa mirada laga nadiifiyo can mir'atiha wajiga miraayadiisa wajiga miraayada ku fiir rabto in ay tirtirto hadii miraayada ka wasaqaysan hada wajiga ku fiirso wajiga markiis amba waxa uu qaaday wajiga inuu haleesan amba wajiga ka haleesan inuu ku fiican yahay laakiin miraayada tirtiraya ma kore kidii wajiga inta ku fiirso xasdi karta inta wax kaga yeel insaan ma saas uu cabir marka wuxuu ku leeyahay quraanka iska fiiri mar walba quraanka wax caadi ma miraal iska dhaxarkayo quraanka meeqa mar akhrisaa quraanka saa amal fashayna isweydiisid waa miraayada inta taas ku fiirsaa suuradaasoo minhu quraanka ilaahay xaqiisa ka ahaaday suuradii oo cabira markaas ashbahad waxay u ogtoo dhahay suwar ayay u ogtaa iyo qaabal heykal oo minna anaga xageena ka ahaaday u ogtoo dhahay heykalkaas oo minna anaga xageena ka ahaaday waa mithlu sida annadaa'iru gabdhaha isku eg ee isku shabahaan iyo annudaraa ragga isku eg nadaa'iru waa jamcu nadiira gabar u eg waa dhigeedi nadaa'irne waa jamcu nadiir nin u eg waa dhigiis waa la helaa haddana bini aadamka iskuma eko waxay ka siman yihiin bini aadanimada hebelna waa bini aadan hebelna waa bini aadan kii ku yimaad kale waa ka fahmiye qur-aanka waa wada qur-aan haddana suurad kasto fadliga iyo khayrka ilaahay siina kala taqaana la rabaa uu leeyahay suwaran suurada waa quraanka ilaahay suurada waa minhu min alquraan quraanka xaqiisa waaye ashbahad isku ekaatay suwaran heykal aan iyo qaab ahaan heykalkaas oo minna anaga xageena ka ahaaday bini aadan aan nahay haddana waa kala duwan waaye ayadoo la qurux badan yahay bini aadamka ilaahay qurxiyo kala duwan yihiin
wa mithla sida annadaa'ir gabdhaha isshabahayo iyo annudaraa wiilasha isshabahayo kale. bini aadamkana waa kala duwan yahay, qur-aankana waa kala duwan yahi yiri. wاlaqaawiilu cinduhum katamaahiili falaa yuuhimanaka alkhudabaau. wاlaqaawiilu wararka oo cinduhum kufaarta xaggooda ka ahaatani katamaahiili waa sanabyadoo kale. adi sanab hadii sanadka kaala caabud ama un aadi may gaal warkiisaas le kuuna qawdhe. falaa yuuhimanaka yousan ku hami gelin alkhudabaau kuwooda wararka daldalo ee khudbooyinka akriyo. gaal hadduu jidka hadda meeshaan dhulkan gaal waxaan ku aragnaa dad gaala jidka waraaqa la taagtaagan oo ku dhahay maalan ugu dambeyntii warqadda oo wato wuxuu ku leeyahay ciisa ilaahi amba ciisa ilaahi dhalay. marka warkaasi muxuu noqonaa marka kaale sanadkan caabud wuxuu dhanya male. imaam buusiirna hadda joogaa qabtaa soo cabiraaya dee weli ilaah waa ilahay carabkiisa la jiro. walaa qaawiilu wararka oo cindahum cinda alkufaari ahaade waa ka tamaahiili asnaab la caabudayo kale warkooda qabasho male. qofka qur-aanka inuu aamino waayo oo ilaahay rumeeyo. falaa yuuhimanaka yousan wax hamiya damca ku gelinin alkhudabaa dadkan khudbada daldalayo gaalada ah warkooda damac ku gelinin. warkooda dhan wuxuu kusoo dhamaa inaa isku ilaah ahnin. marba adi ilaahaaga maxaa waaye lam yalid walam yuulad. haddii ku dhan ciisa ilaahay dhala ciisa anaa kaaga xaq badan dheh ulcasmigu ku jiraa waa nebi ambiyada ilaahay kamida oo qiimo agteena ku leh calayhi salaam. laakiin saa sheegaysa warku maahan waxaa kusoo dhamaanaysa haddii adiga ilaahaaga oo wax dhalay isku ilaah manihin. wax yaraan oo dhim waqtiga waa dhamaada marayna waa bobsiina insha allah. كم أبانت آياته من علوم عن حروف أبان عنها الهجاء فهي كالحب والنوى أعجب الزراع منه سنابل والزكاء فأضالوا في ترادد والريب فقالوا سحر وقالوا افتراء وإذا البينات لم يغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء. ولها روش شاكنا سيدي إمام بوسيري gabayada caadiga hadii lagu gaaro xataa nabiga markuu amaana xigmada afkiisa ka burqanaysay markaasoo waxaa lagu tiriyaa asiga ka horne soo u gabiyo qof u gabayda male asiga kadibni soo u gabiyo qof u gabayda male sidii Imam Busayri xaqiiqatan wuxuu leeyahay marka kam abanat kam badana u dhahay abanat ayatu quraanka aayadiis ee cadaysay oo maxay cadaysay min culuumin culuum ah culuum ay cadaysay culuuman ay cadaysay culuumtaasoo u soo qadar naashiatin ka dhalatay can xuruufan xarafyaal ka dhalatay waayahay xarafyaashaasoo abaana alhijaau hingaada uu ku cadiyey canha xuruufta xaggeeda tusaalahaan hal kelimaa lagu soo qaadaa oo qur-aanka ku jiro camal hal kelimo qur-aanka ku jiro aladiina yu'minuuna camal hadii la yihahdo yani waxyaaba aa ka dareemaysa maxay tahay horta xuruufulhijaa waa inaa ya ku dhex aragto oo hamze ku aragto oo miim ku aragto waxaa dareemi xuruufihii dha xuruufulhijaa alfaxmaalaha ku jiray oo 28 aad arkaysaa haddana ayadoo xuruufulhijaa ah ee waxay ku cadayna dha markaas culum fara badan yu'minuuna kuwii rumaynayo haddana waa haddii lakala qaadana waa xuruufulhijaa marka wuxuu wax yaab la waa yiri kan badana abaanat aayaatu quraanka aayadihiisii ay cadaysay min culuumin culuuman culuum ay cadaysay oo ka wada naashiatin ka dhalatay can xuruufin xarafyaal xarafi ka dhalatay marka hore aayadii xaraf ugu dar aayaday noqotay aayaddii waxay ku cadaynaysa culuum fara badan waay qiso hore u dhacday ahaa caqiide ahaa axkaam ahaa waxay ku cadaysay waaya abaana alhijaau hingaadii ayaa ku cadaatay canha xuruufta hingaadii nacfileedana mees waa laga ogaada ayadan laakin waxaan hingaadii kasoo bilawdeen marka hore saas uu lahay sayid Imam Busayri fahiya xuruuftii dha marka kalxabi waa xabadoo kale xabad galeey amba xabad mazagaa oo kale kasoo qabo dha wanna waa kasoo qabaa daarta laftimireed xuruuftaas waayahay xabadaasoo acjaba zuraaca dad acjaba sanaabilu sabuuladeeda waxay cajab gelsheen ee ka yaabiyeen
iyo wazakaau ziyaadadeeda ilan hal geleya la abuuray ziyaadana waa ka dhashay sabuulna way dhalasay halkii geley wuxuu soo dhashay asoo dhowr geley ah sabuulna wato badanne oo ziyaado wato acjaba marka wuxuu ka yaabsho azuraaca dadkii abuuray minhu xabadaasaa ka yaabis xurufulhijaa'igane xaraf xaraf waa 20 xaraf bis waay qur-aanka inta ka kooban yahay fiiri haddii la kor 20 xaraf xaraf ka baxsan qur-aan kuma jiro wax yaab la waay ha caqliyan waxayd maadaama qur-aanku badan yahay oo mucjizna yahay in uu bilyanis xaraf ka koobnaado 20 xaraf ka kooban yahay faaya xurufta aan sheegayno caqligaa uu ku cabira maahane walakin alqur'aan ablaq min dalik markasta qur-aanka kasii daran faaya xuruftaas aan sheegayno dhah kal xabi xabadoo kale waa tusaale haddaan kusii o dhah aw dadka beeraleyda intay jiraan xabad inay fahmaan waay ciyaalka xaafadda faham wayan xataa wana waa laf timireed alla abuura ase waxay naqeen timireed ajaa'ib waay acjaba sanaabilun waxaa ka yaabihayo dha cajiz geliyahay sabuulyaashii adi sabuulkaad ma abuuray xataa haddii waxaan ilaha dhaliyey laakiin adiga ool maxaa gacanta ku weysa laf timireedaa ku weysa gacanta gacanta xaa ku weysa xabadaa ku weysa haddana xaa yimid sabuul waaba yaabtay iyo xaa kaloo yimid iyo wazakaau ziyaado hal xaboo timira adi ma abuurno hal xaboo geliya ha iyo kuna isku bedeshay waxaanta ka yimideen adaa lagu weydiiyaha minhu min alxabi xabadii ka timid amba laf timireedkii ka timid waxaa ka qaban kartid male qur-aanka ilahi xaw male zid xarf ka kooban yahay waxaasoo mucjizay waxaasoo xugun ku sii kusoo dhawo kule imaam buseyri marka saddexdan beedan ku dareyna ayadoo intaas ay tahay mucjizo ay tahay ee gaalada aysan keeni karin qur-aanka ilaahay oo qof walbo iimaan leh oo dareemi karo qur-aanka inuu wax cajiiba yahay imaamku wuu ka hadlaya markaas hadday muxuu dhahay qur-aanka acjabu cajaban waa yaabura lilkufaari zaaduu dalaalan qad zaaduu dalaalan tiyo marka ku cadfaa marka fa'da inta qaado oo meesha gey raba wuxuu yihi marka fa adaaluu xaggu ku cadfay fa zaaduu dalaalan ma dhihino haa fa adaaluu gaaladii way dheereysteen u dhahay fiihi fi lqur'aani qur-aanka ataradudu labalabeyn war waxaan ma aqbashiin waxaan ma iska dhaaftiin eeba kusii dheeraadeenba warayba shaki labalabeyna shaki hadduu yimidne faqaaluu waxay dhaheen sixrun waa sixir aw qaaluu waxay dhaheen iftiraa waxaan waa been abuurad ha ilaah igu soo dejiyey waxaan quraan waa been abuurad yani waa xaqaraad marka wuxuu iri yaabkee baana isii haysto dhah haddii intaasay arkeen 28 xaraf oo intaan quraan laga samey ayaga soo naqnaqaan isku ekeen yaab leh haddana wuxuu ay ku qanci waayeen wallahi wuxuu waxaan iimaanba looguma talagelin faadaalu way dheereysteen fiihi fi lqur'aani qur-aanka ataraddud labalabeyntii iyo wareeba shaki faqaaluu waxay dhaheen sixrun waay wa qaaluu waxay dhaheen iftiraa waa been abuurash ilahu naxariis imaam buseyri waidaa waqti lam yugni albayinaatu lam yugni aysan deeqin albayinaatu aayadihii cadcadaay qur-aankii waaye shay an shay aysan ka deeqin maxaa la sameynaa faltimaasu lhudaa toosnaanta oo wuxuu yihi oo la dalbo canaa-un waa daal iyo dhibaato bihina bilbayinaati lagu dalbo qofka si kastoo qur-aanka ku akriso soomad waxay dhahan 114 aan aqaanaa ka akrisa maya kugu filan tiyo kale waay wuxuu yihi marka si walbay waxaan ay u cad yihiin haddii qofki deeqi waayaan maxaa la sameynaa nabiyullaahi maxamed adeerkiis abu daalib wuxuu la jeclaa islaamnimada inuu qaato islaamnimada bis inuu qaato diinta u qaato la jeclahay nebiga mkuu qofka islaamiga u jeclahay horta abu daalib maadaamuu nebiga u fiicnaay oo nebiga abu daalibaa nebiga jeclay horta alayh salatu salaam nebigana wuxuu jeclaay abu daalib inuu islaamnimo ku dhinto naarta ka badbaado asali inaka laa tahdii man axbabta marka qof kale maxay ku tiriya marka ayadan hadii lagu kor daldalay abu daalib waa lagu kor daldalay waidaa waqtigii lam tuqni aysan deeqin albayinaatu aayadihii cadcadaay ee qur-aanka shay-un shay aysan ka deeqin faltimaasu lhudaa hanuunka dalabkiisa canaa-un waa daal bihina bilbayinaati aayadihii cadcadaayna lagu dalbo lagu daala dha wax laga qaadi kara male imaamka marka uu soo afjaraa marka qur-aankin inta uga baxaa marka waidaa waqtigii dallat ilcuquulu caqliyaasha ay dhumaan calaa cilmin maca cilmin ayadoo aqoon ay jirto qofkii aqoon leeyahay oo garaad leeyahay haddana wuxuu yihi haddii caqliga ou dhumo oo baadiyoobo gaaloobo qofkii haye maxaa la sameynaa famaada taquluhu nasaxaau dadkii wax u nasteexeynaya maxay sheegayan imaamka su-aaluu kaaga tegaba ha soo maantana wax kugu sheegay wuxuu yaabay iyo dareenkiisa u sheegay
haddana su-aaluu ku hordhigay wuuna iska baxay balaaqida fasaxadiisa mees gaarsiisan qofku wuxuu jecel markuu wax sheegayo inuu haddaa su-aal inta keeno su-aashaasi ku dhex rafto ka jawaabo wixiisa macaan yeelan laakiin macaantooda wuxuu ku tusinaa aniga waa aqaan waaya adigana ma taqaanid waay wa idaa dallat ilcuquulu caqliyaasha hadday gaaloobaan ay baadi noqdaan calaa cilmin maa cilmin ilan qur-aankaa yimid marka waa in la kala baxeed aqoon lagu kala baxo haye famaada taquuluhu nusaxaaw dadka caqli celinta u saaxiibka ah ee kuuna seexeylaya kuu caqli celi lahay maxay sheegayan ku dhahayan maxay ku dhahayaan allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma wa ila liqa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu waa inuu axadam insha allahu tacala haduu ilahina gaarsiiyo